ومدين لها جذاها بالشعب وينها سومانا هي حالة ذاك الدول أو كفرا دجانا ذا بريقة يولي بقلباتك يولي بالشدة أو آذو تعالى سمان مهي وجدا بيجي سحر بر الحوجن وأنا وحيابها وجبضنا الله فيلا جينا هري لان مدح وينها ما أنت لو قد واقدونه إنه كوجوليستو أما سينو كوجوليستي shanta sano ee soo socota hogaaminta madaxweynaha Soomaaliland ilaa haatan waxa socota qaban qaabadii ilaa haatan waxa socota diyaar garowgii ilaa haatan waxa socota oo la sugayay soo galaan musharaxiintii kala duwan ee saddex xisbi qaran kala hogaaminayay waana goobta laga dhawaaqayo musharaxa hogaamin doona shanta sano ee soo socota Soomaaliland waxa si toos uga daawan doontaan Home Cable TV oo hawada soo gali doona saacadaha soo socda iyo ilaa haatan ku jiri doona ilaa inta ku dhawaaqistu ay soconayso hambalida soo gudbin doona waxaana si toos uga daawan doontaan munaasabadani Home Cable TV barta Facebook Home Cable TV leeyahay iyo waliba YouTube-ka Home Cable TV oo dhamaanba si toos uga daawan doontaan taasi waxa si dheer inaad doorato HCTV.tv oo live stream-ka si toos ayadana uga daawan doonto munaasabada laga dhawaaqayo musharaxa ku guuleystay shanta sano ee soo socota hogaanka ama talada qarankani Soomaaliland waxaana wali socota qaban qaabadii iyo waliba diyaar garowgii waxaanad ku nasan doontaan markasta oo Home Cable TV soo gudbin doona hadba halkay maraysa xaaladdu sida ay u socoto iyo waliba hadda musharaxa soo gala ayaad la socon doontaan heesaha si aad maqlaysaan iyo dhawaaqyada aad maqlaysaan waa qaar kamid ah munaasabada loogu diyaar garoobayo in bartan laga dhawaaqo qofka ku guuleystay ama musharaxa ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland ee shanta sano ee soo socota waxaan Home Cable TV marbidan la socodsiin doona halka ay marayso xaaladdu iyo waliba sida ay wax u socdaan waxaan ilaahatan saydiin muuqata kuraaso ay marayeen oo la sugayaa inay ka soo qayb galaan dadkii lagu soo casuumay waxaan idinka soo gali doonaa marka ay soo fadhiistaan musharaxiinta saddex xisbi qaran ka socday ee halkan ka sugayay bal in laga dhex dhawaaqo cidii ku guuleysay talada dalka ee Soomaaliland waxaana markaas Home Cable TV idin ballan qaadaya inuu idin la socodsiiyo xaalad kasta waqti kasta ilaa inta laga dhawaaqayo madaxweynaha hogaaminta qaranka shanta sano ee soo socota saasiyo la socod wanaagsan waxaana marbaad la socodsiin doona halka ay xaaladda ay marayso
الحمد لله والله وكما صدح قلبني والله بلاغي صدح قلبني اسكن نفط قضيه اسكن نفط صدح قلبني والله وندح سيكرا وندح سيكرا خلوانا كودح داودر halkani waa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV waxaanu si toos ah idinka soo warramaynaa xarunta gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa maanta halkan laga dhawaaqi doonaa abaara 3 galabnimo
oo ay ka bilaabmi doonto xafladda sida tooska ah uga bilaabmi doonta in lagu dhawaaqo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee 13 bishii November ka dhacday guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta gudida doorashooyinka laga dhawaaqi doono galabta marka saacadu ay tahay abaara 3 galabnimo waxa halkan laga dhawaaqi doonaa madaxweynihii shanaad ee yeelan doonta Soomaaliland tan iyo sanadkii 1991 markay Soomaaliland qaadatay xubnimadeeda waxaana madaxweynahaasi uu noqon doonaa saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucid iyo wadani midkood saddexda musharax ee u tartamay kuma ayuu noqon doonaa Faysal Cali Waraabe Musabbix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro balse saad ka warqabtaanba waxaynu sugaynaa waxay tahay natiijada rasmiga ah ee halkan ka soo baxda iyo saddexda galabnimo oo xafladdu si toos ah ay uga bilaabmi doonto isla goobtan haatan aynu fadhino oo intaasina aad sii daawan doontaan barnaamijyada kale ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo Soomaaliland iyo taariikhdeeda aad ku sii nasan doontaan laakiin xafladdu waxay noo bilaabmi doontaa ee halka si toos ah uga bilaabmi doontaa saddexda galabnimo haddii Allah awood la yiraahdo wama santiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay idin keentay adeega dhigaal waa dhigo oo ku dheefso si aad u furato adeega dhigaal garaac xidig 128 afargees furo dhigaal oo dhibco ku hel isticmaalka ku hadalkaaga garaac lambar 2 si aad u ogaato haraaga dhibcahaaga garaac lambar 3 oo sarifo dhibcahaaga si aad u sarifato lambar 1 ka dhigo daqiiqado lambar 2 oo bedelo fariin qoraaleed lambar 3 ka dhigo adeega internetka lambar 4 oo isticmaal airtime oo u bedelo kaarka ku hadalka lambar 5 u bedelo hadiyada qaali oo ka mid yihiin DSL-ka internetka laptop mobile iyo waliba hadiyada kale oo qaali oo indhuhu ay ku dogsadaan Hormuud Telecom wixii intaas dheer kale xiriir taleefanada shaashada ku qoran hal